عسكري فدرال بوليس يا ويل بمباس كدلي ويل دان يرى أيو حبات كدفتي مجال بمباس مسؤول آيات كتها عبد ولي كيس كاسي عسكري يدلي إلا ما أنت لما قبل محاي واجباتك أمضنا ذيك السهرة أيدنكو أمني كرنا وأيدتكني بريك كمان كل سامتم يعني عدالة دي بنوت شوفته لما تلا دي قادو عدالة بان هستا موقف كده يكرا عسكري يدلي هدو ما أنت تجي بمباس مركا كيس سنو عصر عسكري قاسي يكوا خسايا وكوا سكلابا حين وسيد حال صح فرح ما صدقها وحوين قف بني آدم كا إن برير اللود لو شرع ما فصحيه dadkan inay nabad ku noolaadaan baa doonaynaa in dadkeena qof kastoo Ethiopiana in la dilo sharcigu ma fasaxayo marka qofka aad sheegayso imika arintaas maalin dhaweyd bay dhacday baarideedu way socotaa waxaan filayaa qofkii nooca dambiyada geystay in la qama doono in gacanta lagu hayana waa laga yaabaa inta kastoo aan xog dhaba imika aan hayn laakiin hay'adda cadaaladda san maqalnay ama booliska ilaa imika dawladda ciidamada federaalku gacanta lagu ma soo wareejin kiisku deegaankeenu ka dhacay maxkamadaha iyo xeer laalinteena waa inay kiiskaasi qaadeen halkan waxa ka muuqda kiiska saad sheegtay baaristiisu way socotaa arshilku sidoo dhacay baa la baariyay muddo dhow way ahayd muddo dhowna waan idin la wadaagi doonaa waxay dawladdu ka qabataa dad la yiraahdo dadkii uu ka dhintay ilmahaasi oo ku daawanaya maxaad u soo ballan qaaday waxaan u ballan qaadaynaa inay cadaalad helaan arrinta inta si cadaalad loo baaro inay cidii ka dambeysay sharciga aan arkeen aad ba maasantay isla iyada ay cadaaladina waan ka bixin waxa jirta dhalinyaro deegaankeena u dhashay oo magacii heego lagu bartilmaameedsaday ama ha ahaadaan kiisas iyaga gacanta lagu hayo ama kuwa magacu saameeye ahaadaan waxaynu xaqiijinay dawladda isbeddelku intii midda in qofka hadalkiisa uu xor ahaa waxaa jirta dad hadal u xidhan qofku inuu hadlay dad u xidhan gabadh naga tirsan oo dhallinyaradeenna ka mid a ayaa magaalada Addis Ababa ku xidhan samsam laydhaa laba mataana ay dhashay ma idinkaa gudbiyey oo dawladda federaalka u dhiibay ma dawladda federaalka iyadu intay soo faragelisay deegaanka iyadoon cidna la hadal samsam qaadatay kiiskeeda maxaad ku ogtiin maxaase xal ah maadaamay gabadh muwaadina tahay oo dhaqan ahaan xataa inay dhulka ku noolaatay adag tahay idinka maxaa idin qorshaysan farax saan kuu sheegay gabadhaad sheegayso waxay la eedaysan tahay waa kiisaska iminkaan ka sheeganayay ayay ku jirtaa waa dadka federaalku kiisaskooga u baadhay awood dhibaatooyinkii hamle haasmid ka dhacay deegaankeena dadkii ku lug lahaa ayay gabadhu ka mid tahay dabeetana baaridooda federaalka baaray kiiskeeguna wuxuu yaalaa dawladda dhexe ama maxkamadaha federaalka ayuu ka furan yahay gabadhaas waxaan rajaynaynaa inay cadaalad hesho iyadii ilmaheedii baa la kala geeyay ayaa wasiir jirta oo ilmihii ay dhashay iyadii inay sarkeed arrintaas idinka dhibana ka deegaankeeni maadaamay tahay qofka in la xukumo laakiin in la karaamadiisii iyo gabadhnimada xataa in la ilaaliyo aan arrintaasoo kale kiiska gabadha waxaa la yidhi ilaa imika xataa ilmihii iyo iyadii isku meel ma joogaan marka gabadha dacwadeeda federaalka gacanta ku haya inay iyadana iyo ilmihii gabadh dhibaata soo gaaraysa uma malaynayo inay go'aan cadaalada dhawaan heli doonto ayaan rajaynayaa wax dhibaatoon aanu ilaa imika arkaya ma jira waayahay hal su'aal waxaa jirtay beeraha 3 jeer baad wasiir ka soo noqotay reportkiinii sanadka xukuumadda ee warbixintii waxaa ku qornayd in la buunbuuniyey tirada xirfadlayaasha beeraha oo aad ugu timiday iyadoo la gaarsiiyey 2792 xirfadle wasiir waxaad ka soo ahayd muddo hadda 7 sano ka hor qiyaas ahaan baan jeclay intaad ka maqnayd ka hor baheed markii aad ka tagtay iyo 7 sano miyaa buunbuuninta lagu daray mise markii aad adigu joogtay ee dawladdii horeed ka tirsanayd buunbuunintu way jirtay maxaa hadda keenay in 658 xirfadle lagu soo celiyo xirfadlayaasha 2792 okay su'aashaan idinka yar jawaabo ceerka kameeyana deegaankum baad joogteen shaqaale DA oo 2000 oo bir qaadanaya marka dib u curasho la geliyay ninkii ku qoraa qabr beex baa la geeyay dawladda salas mu joogi kara balwaqti idin weydiiyay shaqaale oo dhan ee xirfadlayaasha beeraha dib u curasho la geliyay tanka soo carray mid tahriiba mid xirfadiisii bedelo finance barta xisaabaad barta dadkii bahdilkii baa keenay horta inay daaqada ka baxaan idan baa fiican annagu waxaan sameynay si moralkoodii loogu dhiso jaacaddan ku xireen hadda 120 digrii bay baranayaan qofku markuu aaminsan yahay inuu wuxuu kordhayaan shaqadii ku sii joogi dirigu wuxuu ku qaadan doonaa 4 sano
afartaa sano digriga dhammaysan meel kale tegi maya xafiiskii beeraha uu shaqaynay labo qaarkoodna waxaan samaynay tababar gaaban ay ku shaqaysan karaan su-aasha markaan uga jawaabo horta saas bay ahayd laakiin waxa laga maarmaan aan ku soo celinayaa xadiis baa ahaa ama waxay ahayd aayad baa ahayd fain jaakum faasiqun binabayin fatabayanu niman iyo hadalka la iskama yidhaahdoona waa laga fiirsaday warka waa la caddeeyaa caadifada in qof loogu hadlana maaha wiil saaxiibka halka in isdifaaca ma jecli markaad wax qiimaynayso waxbaa la isbarbardhiga kan kanaa ka miisaan badan kan kanaa ka miisaan badan laakiin hadda tira kanaa culus kanaa fudud aad buu dhaktarku maasay runtii waa qof in badan isku day inuu deegaanka wax u qabtay inuu bilaabo in loo tartamo boosaska shaqada uu ku ammaanan yahay waxaa afar hadday saxabeen hal mid qaldanto oo weliba uu leeyahay halkii aanu kuma qaldamin laakiin sharcigu maan marnay taa laftarkeedu waa xumaan ama aynu dhakhtarka saxafiya moraal siino aad buu runtii u mahadsan yahay dr cabdiqaadir oo ah odayaasheenna keliya maaha nin aynu u arkayna un mas-uul waa odayaal hal su-aal baan cabdiqaadir ugu daraynaa wasiir iyay mas-uuliyad ka saaran tahay in la kordhiyo DA-yada mushaharkooga yay mas-uuliyad ka ilaa maanta adaa joogay xafiiskaasi DA-yadu waxa looga yaacayaa waa mushaharta raatari mas-uuliyadda ayaa laga sugaya marka loo kordhiyo niyo marka runta la sheego dhaliisha qayb waan ka qaadanay sababtaa shaqaale anu aan mas'uul ka ahay oon qanacsanayn de mas-uuliyadda iga saaran hadda waxaan wadnaa saan idiin sheegay qaab dhismeedka xafiiska inaan dib u habayno mishaarkooda oo kale si loo kordhin lahaa aan wax ka qabanno aqoontooda si loo dhis lahaa wax ka qabanno kolba wixii suuragalan qaban karayna inaan qabanno laakiin mid ku xisaabtama mishaar anuma odhan karo intaa hala siiyo haddii maaragtay mishaarka la kordhinayo da dariiq bay mari annagu waa inaan dariiqii diyaarino xukuumaddana aan u gudbinno laakiin waxaan aaminsanahay DA-yada ama shaqaalaha xirfadlayaasha beeraha in xuquuqdii ay lahaayeen aanay helin shakhsiyan dr cabditaxan hal su-aal ayaan ku daraynaa oo dadku inta badan isweydiiyaan gobol baad ka soo jeeday mas-uul golo dhexaad tahay xisbi baad ka socotay gobolka doollo sanadkii lasoo dhaafay caqabad fara badan ayaa gobolkaasi ka jirtay hadday tahay dhismaha dhanka maamulka waxaa anagu qaadan karnaa dadkeennu waa xoolo dhaqato waa dad masaakiina oo daacad iyagu ah hadday iyaga dhibaata dhexdooda ka jirto mayna wada noolaadeen marxaladda adkeedna kamay soo gudbeen mar walba waxaa saamaynta leh aragtida siyaasiga ka siyaasad ahaan dhaktarka oo aan jecel lahay oo yidhi cadcadaan haynu iskula xisaabtanno ma saamayn intee leeg baad ku lahayd dib u dhicii dhaktar gobolka doollo waxa ugu badan ee lagu dhaliilo horta waa taa hadda laftigeeda waxaa la leeyahay dad baa xubno loo magacaabi lahaa isaga ku taagan anna allahay alle marka dee anigu siyaasi markaa tahay cid macnaha wax kaa sheegta iyo cid kuu ducaysaba waad arki kolley bini aadan baan nahay waa khaldami karnaa marnaba ummaddaas hadda dadka ugu badan ee aniga wax iga sheeganaya haddaan wax yar tusaale yar ku siiyo aabbahay isaga oo diidan nidaamkii xaqdarrada ahaa ee xayle salaase iyo dhargigii buu hoodlay walaaladay ku wada dhasheen badankooda anigu marka inaan meeshii aabbahay soo dhaweysay soomaalinimo ku soo dhaweysay oo isla gobolkii doollo ah oo wanaaggaan ogaa noo haysa guryahanagii ku yaallaan inaan cadaalad darro ku sameeyo kolley wax mid baa jirta oon qirayaa xagga xidhiidhka gaabbaa ka jira Facebook account anigu ma lihi cid waxaa weeye ma garanaysaa inkastoo la dhaho dad buu lacaga siiyaayo wax u qorqora anigu taana kolley beri baan ka ahay maadaama fursadda helay ninka SDM qora maanta igu horreysa kolley inay wax badan oo macnaha magacayga oo dee shaqooyinkaan qabano qoraanna waan ogahay marka macnaha waxa weeyaan wax badan bay shacabku dhihi in laga fiirsadaa fiican gobolka doollo waa naloo diray waxna waan ku heshiinay waxna kumaanaan heshiinin wixii aan ku heshiin weynay xukuumaddaan isla soo noqonnay xukuumaddu iyada oo eegaysa santaradii jiray ee baarlamaanka warqaddii laga soo qaaday taa macnaheedu maaha santaradii jiray boqolkiiba boqol sax bay ahaayeen laakiin macnaheedu waxaa wax un laga duulo ku meel gaara hala samay baa la wixii la sicidi baa laga sixi afar qof baa loo magacaabay afartii qof ee madaxtooyada waxay ugu sarraysay go'aan baa la qaatay liis baa la yidhi keena liiskii baa waxaa weeye nin baa la yidhi qayb soo gudbi qaybtii anigu kolley la yidhi soo gudbi waan gudbiyey saasay horta wax ku socdeen inay soo kala hor baxday waxoogaa dee khibradna way iska jirtay oo anu cidna kuma eedaynayo laakiin waxaa la yidhi ninkaasi wixiisii macnaha reerkii isaga xaggiisa ahaa buu reerka dhexdiisii waxbay sii sheegeen qabyaaladda horta ma dhammaato su-aashan marka waa muhiim maxaan idinku aaminaynaa inaad idinku tihiin mas-uuliyiin deegaanka oo dhan waxaan kuu sheegi wardheer oo kale master plan mayna lahayn waana caasimad gobol aan aaminsanahay iyadiyo gobollo kale oo inay yihiin gobollo aad loo dayacay aad waxaa weeye loo gacan bidixiyey anigu aan aaminsanahay waa khaldanaan karaa doollo afdheer meelaha qaarkood kolley
kuwaan sheegay kuwaan sheegay waxaan marka samaynay imisa master plan way joogaan way sixi karaan dhalinyaradii master planadii ama qorshahagihii imisa sanadkan qaban karnaa wax awoodannada ka baxsan baan qabanay dib baan ka ogaanay laakiin meelihii aan ugu horreynay waxay dad aan qabiil ahaan runtii aan Soomaali isugu nimaadno gaashaan baa ka mid ahayd xarshin baa ka mid ahayd beer caana ka mid ahayd qalaafaa ka mid ahayd wardheer hadda laga wadaa macnaheedu waxa weeye inaan dadkaas tusno Soomaalida horta kuwa laftigooda su'aal baa laga keeni karaa see lagu xushay laakiin inaan tusno anagu dadka meesha ugu badan hadda enerjiga ugu badan aan galiyo waa jigjiga waxaa laga yaabaa haddana dadka qaarkood inay haystaan inaan jigjiga ku taagnahay marka anagu kolley waxaan aaminsanahay inaan shaqada aan haynay ummadda u wada hayno shaqaalaysiinta waxyaabaha hadda inta badan dadka lagu xanto macnaheedu ma aha anigu ceebka saliim baan ahay laakiin qandaraaska 52 shirkadood oo kala duwan dadka wax hal la gaarsiiyay baan nidhi inkastoo meelaha qaarkood la yidhi reer aan u dhalanin baad siisay dee hadda anagu qofka sharci baan kula xisaabtamaynaa marka macnaha ama qandaraas ahaato shaqaalaysiinta waan heli karay warqad yar intaan ugu qoray CBA inaan dhaho intaas qof baan u baahnay isoo shaqaalaysiin dhowr bilood baan sugaynay maxaa nagu kalifay Dr. Cabdiqaadir baan inspiration ka qaadanaynay oo qaabkuu maray oo kulli anagu aan u aragno inuu shaqo fiican qabtay anagoo kaga dayanayna inaan dadka waxaan u tartansiino 39 qof baan maalin dhaweyto u dirnay oo hadda waxoogaa laga joogo 22 qof baa soo baxay wiiga horaan dhajinay soo shaqo gala baan nidhi kuwa kalena waa wadno macnaha waxyaabaha dadka la dhaho qofkani wuu waxaya kuwii aniga dad iigu xigay baan marmarka qaarkood ka baqa haddaan cid aan isleeyahay wallaahi armaad ku gaftay waa kuwii dad iigu xigay marka in labadan nin meesha la fadhiyana kolley iyo dee xukuumaddaba waxaan ogahay intaan ka aqaano badankooda inay ku dadaalaan kolley markaa isla joogna dee marka